waxaa maanta magaalada Ceerigaabo imtixaan ugu fadhiistay 373 arday oo ku tartamaya 330 kaalmo shaqo oo loo qaadan doono barnaamijka Shaqo-qaran oo kamid ah barnaamijyada ay xukuumadda Soomaaliland ugu talagashay inay shaqo abuur ugu samayso dhalinyarada reer Soomaaliland. munaasabadii furitaanka imtixaankan ayaa waxaa ka soo qayb galay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Sanaag, agaasimaha barnaamijka Shaqo-qaran ee Soomaaliland, isuduwayaasha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada iyo waxbarashada gobolka Sanaag iyo marti sharaf kale. waxaana ugu horreyn halkaasi ka hadlay agaasimaha barnaamijka Shaqo-qaran ee Soomaaliland Maxamed Xuseen Muadin iyo qaar kamid ah howlwadeenada barnaamijka Shaqo-qaran oo sharaxaad ka bixiyay imtixaanka Shaqo-qaran ee gobolka Sanaag. waxaan u nimid imtixaanka maanta ka bilaabmay 8 subaxnimo caasimadda gobolka Sanaag magaalada Ceerigaabo oo ay fadhiisanayaan tiro ku dhow 400 oo arday oo u tartamaya barnaamijka Shaqo-qaran. waxa la qaadan doonaa haddii la yiraahdo marka imtixaanka la saxo si cadaalad ah 330 oo boqolkiiba 30 kamid ay yihiin gabdho, boqolkiiba 65 ay yihiin wiilal, boqolkiiba 5 ay tahay naafo. haddii la yiraahdo waa wax soo biiray gobolka Sanaag waxay noqon doonaan shaqaale, madax, mas'uuliin, saraakiil haddii la yiraahdo inta soo baxda. waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay isuduwaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee gobolka Sanaag Marwo Faadimo Xaaji Xasan iyo isuduwaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Sanaag Axmed Shire Maxamed. maanta halka waxaynu u taaganahay barnaamijka Shaqo-qaran oo ku soo gabagaboobay oo imtixaankii loo fadhiyo 22ka bisha 12aad. waxaan noo geliyay 376 arday oo gobolka Sanaag aan ka diiwaan gelinay. waxaan ugu mahadcelinaynaa jamhuuriyadda Soomaaliland iyo madaxweynaha Soomaaliland qaybta fiican ee 330ka ee gobolka loo tixgeliyay maadaama uu gobolku yahay gobol ballaaran. hawshan waxaanu ku fululeynay 3 wasaaradood, wasaaradda waxbarashada iyo gobolka iyo wasaaradda arrimaha bulshada oo xogeynka ah. waxa weeye maanta si fiican ayay noogu socotaa oo habsami ah. waxaanuna uga mahadcelinaynaa madaxda nooga timi caasimadda oo ah agaasimaha Shaqo-qaran iyo agaasimaha waaxda kormeerka. aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa. gabagabadina waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Sanaag Ismaaciil Cabdi Xasan oo ku dheeraaday muhiimadda barnaamijka Shaqo-qaran ugu fadhiyo shaqo abuurka ardayda gobolka Sanaag. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay run ahaantii gobolka Sanaag waa ay ka bilaabantay imtixaankii Shaqo-qaran oo si degan oo habi ah u socda oo nabadgelyo ah run ahaantiina ay gelayaan arday fara badan. insha Allah waxaan ku rajaynayaa inay ku guuleystaan imtixaanka ayna soo baxaan intii looga baahnaa gobolka ay buuxiyaan ayaan ku rajaynayaa. ويونس شيخ أحمد Universal TV Ceerigaabo.